Assalaamu calaykum, kusoo dhawow aqoon cusub oo fashion. Maanta waxaan ku hayaa su'aalo iyo jawaabo diinaya oo muhiim ku ah inaad ogaatid. Marka hore waxaan sheegayaa su'aalaha, kadibna jawaabaha ayaan ku xijinayaa. Su'aasha koowaad, sheeg waxaad sheegtaa awal rasuulkeega u ahaa. Su'aasha labaad, waxaad sheegtaa suuradda qur-aanka ka mid ah oo aan lagu arkin xarafka mim marka laga reebo bisinka. Su'aasha saddexaad, waxaad sheegtaa afar aan la dhalin oo qur-aanka ku jirta ama qur-aanka lagu sheegay oo nafley ah. Haddii aan idin bayaaniyo, 2 bani aadam iyo 2 xayawaan bay kala yihiin. Su'aasha afraad, sheeg khadiibkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Su'aasha ugu dambaysa shanaad, sheeg dagaalka Uhud, saxaabigii u horbilaabay mubaarasada. Su'aasha koowaad jawaabteeda waa Nabi Nuux calayhi salaam. Su'aasha labaad jawaabteeda waa suuratul Kawsar ama Innaa Cadaynaa. Su'aasha saddexaad jawaabteeda waa Nabi Aadam, Xaawo, Hashi Nabi Saalax, wankii Nabi Ibraahim. Su'aasha afraad jawaabteeda waa Saabit ibnu Qays. Su'aasha ugu dambaysa jawaabteeda su'aasha shanaad waa Subayr ibnu Cawaam.